halkan waa mid ka mid ah xeryaha dadka soo barakacay degan yihiin aniga runtii way aragnimo badan ayaan duruufahan hore aan u leeyahay waxaan soo joogay 1974 abaartii aad daba dheer waxaan soo joogay hadda dhaweedo 12kii yani abaaruhu iyo dhibka ay keenaan iyo sida xaaladda dadka hataa u bedelaan iyo deegaameynta iyo waxa dhan dadkan abaartana waxa ula sii jiray dhibka oo hadda madaxweynuhu ka dhawaajo nimanka nabadiidka meesha joog dadkii beeray waa tacba waayeen si xor ah waa u soco waayeen haddii loo tegi lahaa waa loo tegi waayey marka in ayaga iska soo kacaan meeshii de noloshooda ay ku badbaadsimaadeen dadkan dad xoolana dhaqdo beeralayna isku ay ahaayeen xoolalayna beeralayna xoolihiina waa dhammaadeen waa dhaafeen beerihiina muxuu ahaay waa la tacba waayey abaartii roob la'aanta ka sokow markii roob yar la helana shabaabaa laga tacban waayo oo dadkii ilaa ay beesa bixiyaan abuur dhulka ma ku ridi karaan beesana ma haystaan sida haddaba ay noo sheegeen qoysaskii iyo dadkii aan warsanay qaarkood marka muxuu ahaay duruufta dadkaani meesha keenta waa duruuftaas dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan walaalaha waxaan ugu baaqaynaa sideedaba dadka in loo dhugnaado loo diyaar garoobo wixii la haysta aan ku noolnahay aan la wadaagno kuwa baydhaba jooga iyo kuwa dalka intiisa kala jooga intaba dadba barakacayaan meel kasta oo joogaanba qofka Soomaaliga ahaw saxanka marka miiska lagu soo saaro cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiif inuu jiro walaalka ah cunug yar oo baahi daraadeed u ooynaayo inuu meel joogo fadhiyo ogaaw qalbigaaga ku jirto markaasna waxaad ka qaban kartaa ka qabo waalidiinta hooyayaasha aabbayaasha Soomaaliyeed oo carruurtooda qadaya quraac casho heli karo iskuul iyo dugsi quraan u dirsan karo ogow ilmahaaga ilmo lamida oo qadaya quraac casho heli karin maxaan ku raay iskuulna aan aadayn dugsi quraankana xeradan aad u balaaran hadda inta yartaad aragteen meesha yartaad aragteen ku soo koobnay madaxweynaha khayr Allah siiye ku dhawaaqay in dugsiga muxuu ahaay la weyneeyo oo gudoomiyaha degmada amray in dugsi loo dhiso dugsiga hadda aan soo aragnay in la ballaariyo oo la weyneeyo inta yartaa intay roobka galayeen ay ahayd hooyooyinka iyo carruurta sida u yaalaan waa arkiiseen oo indhiina ku dhacay walaalayaal dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyaan waxay dawladdu waxay priority u ah oo number 1 number 2 ah amniga dalka inay wax ka qabato laakiin dadkaani beriya amniga la sugu doona noloshoodu ma gaartee maanta u baahan yihiin muxuu ahay wixii basic qof bini aadan wax u baahnaado wixii ugu hooseeyay ay maanta u baahan yihiin meel kasta ay joogaan baydhabo bas ma dalka dhan ay joogaan meel kasta ay joogaan oo ka gaarto adigu ama wax gaarsii karto wax gaarsii annaguna waxaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiis inta karaankeena iyo xoogna suuqeeno waxa dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan oo duruuftaas ku jiro loo soo bixi inay soo gaaraan oo ay lagu hubsado inay maxaan ku raad gaareen haddii alla yiraahdo dadka Soomaaliyeed caalamku waana taageeray waana garab istaagay waana noo hiiliye marar badanna waad ogtiin inayna garab istaageen laakiin inaan annagana muujino waaye
dad garabka haddii la qabto istaagaya inaan nahay laakiin dadan istaagayn haddaan noqono nalama istaaji karo waxaan codsanayaa dadka soomaaliyeed mar kale caqligooda iyo xooggooda iyo kuwa wax siiyey ilaahay ha u badiya waxay haystaan dadkan in la soo eego haddii aan yidhaa aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu